shirkii Kismaayo Axmed Madoobe ku baaqay kala haadka ka dhacay ayaan galabta rabaa inaan ku dul istaago. waxa lagu casuumay madaxda dowladda federaalka kuwa u tartamay kursiga ugu sareeyo madaxweynaha sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur, Cabdullaahi Farmaajo, Xasan Cali Khayre, Sheekh Shariif Sheekh Axmed. xataa waxa igu maqaala Axmed Madoobe inuu u soo diray casuumaad Xasan Sheekh Maxamuud ay igu maqaala sida aniga hoos la igu soo sheego laakiin xaqiiq uma hay Ilaahay baa igu markii casuumaadaas ay soo dhacday iyo Saacid oo maaragtay hogaaminaya haybad qaran nimanka la yiraahdo Fahad Yaasin dhammaan wuxuu u yeeray Axmed Maxamed Islaam inta hogaamiya oo muuqda oo u yeera sida wada ogtihiin dowladii hore Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha ka ahaa waxa hor istaagay Dani iyo Axmed Maxamed Islaam oo isku beel yihiin oo magaca daarad ay wada wadaagaan haddana waxa casuumay Cabdullaahi Farmaajo Axmed Maxamed Islaam dadku waxay is weydiinayaan ma yeeli doonaan mase waa diidi doonaan xaqiiq boqolkiiba boqol aan kaaga hayaan Cabdullaahi Farmaajo shirkaas wuu aqbala Axmed Maxamed Islaam waraaqda ka tibadna wuu aqbala laakiin hadda maxaa taagan laba nin ayaa waxay dhaheen ka qayb gali mayna shirka haddaan ninka Cabdullaahi Farmaajo uu ka qayb galayo Axmed Maxamed Islaamna ay isku group yihiin waa labadaas nin barnaamijkan iga sheer garay meel walba gali labaasna waa Xasan Cali Khayre iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Sheekh Shariif booday wuxuu u tagay Cabdullaahi Farmaajo wuxuu yiri labaas nin aan rabaa inaan isu kingeeyo in heshiisiyo iga aqbal shirkaasna wada aadayna Farmaajo waa yeelay sababtoo shirka casuumadiisa wuu ogolaaba markii horeba Xasan Cali Khayre la soo laabtay wiilkaas murushado uurgaale waa wiil adag horta maanta markii la ii sheegay arrintan oo si hoose ragga ugu dhunta daloolda ii sheegeen anuu maanta waa taageera Xasan Cali Khayre maxaa ku taageera waa nin go'aan leh Xasan Cali Khayre markii loo yimid ma yeelayo yiri aniga mana aaday shirkaas hadii Cabdullaahi Farmaajo uu tagay siyaasadan naga dhaxaysan Cabdullaahi Farmaajo shakhsiyan personal naga ma dhaxeeyo kuraasaan ka soo wada shaqeeyno dowladda federaalka oo wada shaqeeyno maaragtay hadda ka hor aan dakra siyaasadeed ka tabanaya mana u socdo meeshaas waxa loo tagay Sheekh Shariif u tagay ninkan la yiraahdo Xasan Cali Khayre Sheekh Shariif ana dhehireen Cabdiraxmaan Cabdishakuur soo xaliyay ninkan saaxiib hadda adoo kula noqday adaan nooga sokeeyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu yiri urgaal horta ma ogtiin habar jireesh oo abtiyaaluna aniga waxaan soo dhisayaa oo igu ogtihiin Xasan Cali Khayre warku asaga yiraahdaan ay dhahan aniga labadaas nin shirkaas Kismaayo ilaa iyo haddeerta halkaas ka taagan yihiin laakiin waa imaan karaa xal ay ku wada tagaan halkaasna waxa ku burburi doona sida xaqiiqdii ah hadday diidaan inay shirkaas tagaan nimankan la yiraahdo groupkii uu hogaaminayo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo baal waxa noqon doona group waxa noqon doona Xasan Cali Khayre iyo Cabdishakuur Sheekh Shariifna groupkiisa labadaasna meesha ka muuqatay group aadi doona asagana laakiin waxa la isweydiinaya dadweynaha Soomaaliyeed isweydiinaya Cabdullaahi Farmaajo ma tagi doona shirkaas wuu tagaya Axmed Maxamed Islaam aan ka kala dhaafina sheekada waxa la yiraahdo imaanaya ninkan Cabdullaahi Farmaajo ma imaanayna shirkaas annakoo kala ah Xasan Cali Khayre iyo Cabdishakuur Axmedna wuxuu ugu jawaabay waa halkan inuu siyaasiga ah ee daarood oo maantay nool oo Xasan Sheekhna riixi kara annagu waxaan rabnaa ujeedkanaga ma aan siyaasad hore u soo dhacday ee waxaan rabnaa Xasan Sheekh maanta yaa lagu riixi karaa waa Axmed Maxamed Islaam ninka saas dhahay wixii hore oo nooga dhacana nool boo qaladkii ka dhaca way yaqaanaayeen dib loo raacin uu soo jeedsha hadalkaas soo jeedsha shirkaas Axmed Maxamed Islaam oo ku baaqay waxa riixaya beesha caalamka sida Imaaraadka Ethiopia Kenya Qatar intaas riixaysa iyagoo ujeedada ay uga goleeyeen ay tahay burburka Soomaaliya kala tagga Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed kala fogaanshaheeda أول بكسر إسنا فدرال أو قبيل نول برا فدرال كيسو وجوجيو قد كي قلبات أن ربنا هالكان ودر صدق دقالة وحكنا عيسى ما نتصدق حتى كسعداء قبل كأودل
borama meesha la yiraahdo nimanka borama jooga reer borama la yiraahdo waa nimankii aqoonta Soomaaliyeed ahaa sida dhabta markii aniga aan xaqiiqada aado waa xaruntii tacliinta Soomaaliyeed waa xaruntii waa macallimiintii ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ka soo aflaxday kala bar waa dadkii mirmirta ahaa oo miida ahaa oo ummadda Soomaaliyeed ku jiray waxa maanta xabadu ka dhaxdhacayso oo dhalinyaradoodii la laynayo waa u tacsiinaya marka hore wixii in ka dhinta Allah u naxariisto Somaliland aan ugu baaqaya galabta midaan horta waxa meeshan wax riixaya oo maaragtay isku diraya Somaliland waa isaaq dhaxdiisa dhabta markii laga hadlo saddexdii urur oo xisbi qaran ayaa waxay u gashay gacanta hal qabiil saddexaas urur oo xisbi qaran waxay rabaan inay meesha ka tuuraan asagoo xilkiisa dhamaysan ninkaan siyaasadda aad u fahansaneen oo la yiraahdo Abdiraxmaan Ciro adikoo isgarbinaya yeesay ku dhicin ummadda ruuxeeda yeesay ka kala lumin waxa in ka lumay dhulbahantii oo ogtihiin oo adinka qayb ka ahaan jiray oo dawlad waqooyi bar la yiraahdo ku dul samaystay waxa in ka lumay hadeertaana aad luminaysiin borama luminaysiin iyo gobolka awdal markaasna waxaad noqonaysiin qoys miiran oo isaaq la yiraahdo awal waxay idii ahayd baashu qabiilo badan oo Soomaaliyeed oo daarood iyo dir leh aad ka koobnaydeen xataa hawiya in ku jiray laakiin hadda waxaad noqonaysiin haddii aad ku kacdin falkan kuna adkaysatiin xabadda awdal ka socota inaad wadiin xoogna ku maquunisiin dadkaas waxaad noqonaysiin isaaq qabiil la yiraahdo noqonaysiin dawladna ma noqon kartiin markaas waa anigoo anoo habar gidira dawlad madax bannaan ah oo qabiiladii Soomaaliyeed dhan in kale 12 qabiil galmudug ila wadaagtay haddaan iraahdo anigoo hawiya galmudug dawlad madax bannaan ka dhigtay inta qabiilo ila degan aan inkiro shufaq ma noqoto dawlad intaasaan ugu baaqaya xabadda ku socota awdal joojiye saaqow ciidamada militariga dib ula baxa ragga walaalihiina maslaxad ka raadiye waa dadka aqoon-yahanada ahaa ummadda Soomaaliyeed hagi jiray wax bari jiray nimankan samaroon intii ka dhibatana ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo intii ka dhaawacantana Allah u boogadhayo dadkaas murugada ku taagan oo saddex madaxbadu ka dul dhacaysana waxaan leeyahay waa in la qaybsanaynaa dareenka meeshaas ka dhacay iyo maaragtay waxa dareemaysiina la dareemayna waana ka xunaa qodobkayga ugu dambeeya aniga xil guntada namayahow galabta waxaan rabaa inaan runta sheego waddanku doorasho aadaya hogaamiyaasha Soomaaliyeed hadda mid aan toos ula socdo ma jiro ninkii ila soo xiriira oo yiraahdo xil guntadow ila shaqee garabkiisaan istaagaya hawiye iyo daarood nin ku noqdo ha noqdo cid aan la socdo galabta u nax nin dambana uguma raxlaynayo asagoo iga warqabin kumana taageeri doono waxaan u baaqayaa galabta raggan aad aan qalbiga uga rabo sida Xasan Cali Khayre ninka la yiraahdo Xasan Cali Khayre number 1 iyo aniga Sheekh Shariif Sheekh Ahmed number 2 iyo حسن شيخ أنا موت كنت شيء ما أنا هباري ما أنا أدعيني سيدا نبتة أو حقيقة ذوي ما أنا هباري ما أنا أدعيني حسن الشيخ موت عني أصلا سكين لحشي هنقولين إسكمكين لحني وحنقول كلا دمنا شعب كالصوماليات ولقوا يسينا يانكو كلا دمنا حسن على قيرها وريبا نمبر 1 إياه وحسن على قيرها حلقوا انتدي قلبتي إن سعادو كورها اللي هلو صادق هدا حشونيس صحافد waa lagu wada shaqeystaa waa la ogyahay aad xishoonaysidna madaxweynaha raadini wax ka yar raadi oo xishoonaysid laakiin hadaad xishoonin saaxiib bareeraha soo cadeyso ragga ku taageeri karo garab istaagi karo codkarka soo raadso waa bilaash kugu raxlayn mayno waa ina bunka noo dibtaa bunka waa ina noo dibtaa wax bilaash la yiraahdana kugu lama soo hadlin aniga taageero free kugu lama soo hadlin bunka waa ina dibtaa